dagaal dhab ah ayaa ka qarxay dalka Mexico ma aha dirir u dhaxaysa Mexico iyo Mareykanka ama dal kale oo daris la ah laakiin waa isku dhac toos ah oo u dhaxeeya dawladda Mexico iyo mid ka mid ah kooxaha muqaadaraadka ugu awoodda badan dalkaas oo loo yaqaan jiilka cusub ee Jalisco kadib markii la dilay hogaamiyahoodii Nemesio Robin oo loo garan ogaa El Mencho saacada gudahood gobolka Jalisco wuxuu isu bedelay goob dagaal deganaanshihii lagu yaqiinay ayaa isu rogay sawaxan rasaas joogto ah qaraxyo iyo dab baahsan dawladda Mexico waxay soo daabushay ciidanka militariga cutubyo gaar ah ilaalada qaranka diyaarado dagaal diyaarado qumaati u kaca iyo gaadiid gaashaaman dhanka kale kooxda muqaadaraadka ayaa iyaduna u soo baxday sida ciidan qayb ahaan rasmi ah iyaga oo wata gaadiid gaashaaman iyo hub culus oo ay weheliyaan xubno aan si fudud looga sooci karin ciidamada gaarka ah marka la eego hablabiska iyo hubka ay sitaan laakiin su'aashu waxay tahay sidee ayay kooxdan u kortay ilaa heer ay la tartanto dawladdan sidee loo dilay hogaamiyahoodii yaa bixiyay xogta sidee ayayse u saameynaysaa koobka adduunka oo 3 bilood oo kaliya ay naga xigaan kaas oo ay wada marti gelinayaan Mexico Mareykanka iyo Canada soo dhawaada markale kulan wanaagsan haddii ay tahay markaagii ugu horeysay oo aad daawanayso Tifaftir Media waxaan ka rajaynaynaa inaad ku soo biirto bahdan nagu xiran aan toos u abaarno tabinteena subaxnimadii ay taariikhdu ahayd 22 bishan Febraayo 2026 ciidamada Mexico waxay heleen xog sirdoon oo laga soo dusiyay Mareykanka taas oo tilmaamaysay goobta uu ku dhuumaalaysanayay El Mencho meel ku taala gobolka Jalisco wasaaradda difaaca Mexico waxay bilowday howlgal loo bixiyay gaashaanka Jalisco abaarashanta subaxnimo ciidamadu waxay weerareen xarunta uu ku sugnaa waxaana halkaas ka dhacay iska hor imaad culus oo qaatay ku dhawaad 2 saacadood markii la isku dayay in lala baxsado El Mencho waa la dhaawacay ugu dambeynna waa la qabtay waxa si degdeg ah diyaarad loogu qaaday magaalada Mexico ee caasimadda waddanka balse waxa uu dhintay intii lagu guda jiray duulimaadkaas markii 9kii subaxnimo si rasmi ah loo xaqiijiyay geeridiisa kooxda ayaa bilowday argoosi ballaaran oo gilgilay qaybo badan oo dalka ah dab ayaa la qabadsiiyay dukaamo bangiyo kaalmo shidaal iyo gaadiid baabuur hubaysan ayaa dhex maray wadooyinka Guadalajara iyo Puerto Vallarta magaalooyinkan oo la qorsheeyay inay martigeliyaan kulamo ka tirsan koobka adduunka 3 bilood kadib rabshaduhu kuma ekaan wadooyinka oo kaliya ee waxay gaareen garoomada diyaaradaha waxa la xiray dhowr garoon waxaana la joojiyay 10 duulimaad cabsi laga qabay in lagu weeraro gantaalo garbaha laga rido maalintii xigtay ee 23 Febraayo waxa la joojiyay iskuulada waxa la soo rogay bandow guud waxaana dadweynaha lagu wargeliyay inay guriyahooda joogaan xaaladda magaalada Guadalajara waxay u ekaatay muuqaal filim dagaal gaadiid gubanaya jidgooyooyin la sameeyay gaadiid rayid oo la joojiyay dabna la qabadsiiyay hatta baabuurta shidaalka qaada oo la gubay qiiq ayaana laga arkayay masaafo fog Puerto Vallarta magaalo lagu yaqaan dalxiis iyo xeeban nadiif ah ayaa iyana isu bedeshay goob dagaal dalxiisayaal ayaa lagu qasbay inay ku dhuuntaan hoteelada magaalooyin nolol badan lahaa ayaa saacada gudahood isu bedelay goobo cidla ah kooxdan loo yaqaano jiilka cusub ee Jalisco ama Jalisco New Generation Cartel waxay ka dhalatay kala jab ku yimid koox kale oo falaaga ah sanadkii 2010 hogaamiyahoodii El Mencho oo markii hore ahaa askari booliis wuxuu si degdeg ah u dhisay shabakad qaab shirkadeed u shaqeysa waxay qaateen nidaam qof walba oo ku biira uu maamulanayo hawshiisa balse faa'iidada iyo magaca waxay ku xiran yihiin xarunta dhexe istaraatiijiyadan ayaa u suurtagelisay inay ku fidaan in ka badan 23 gobol oo Mexico kamid ah ayna yeeshaan joogitaan ka badan 40 dal dakhliga ayaa gaaray balaayiin dollar kuma ekaan muqaadaraadka oo kaliya ay waxay ku lug yeesheen tahriibinta dadka xatooyada shidaalka ka ganacsiga hubka iyo musuqmaasuq baahsan El Mencho maadaama uu hore u ahaa askari booliis wuxuu si fiican u yaqiin xeeladaha ciidamada taas oo u sahashay inuu muddo dheer ka baxsado qabasho dawladda Mareykanka waxay dul dhigtay malaayiin dollar oo abaalmarin ah kobaca degdega ah ma ahayn mid ku dhisan rabshad kaliya balse waxa uu ku tiirsanaa musuqmaasuq booliis garsoorayaal iyo mas'uuliyiin ayaa la sheegay in la laaluushay meelo badan oo gobolka Jalisco ah xubnaha kooxda ayaa ku dhex milmay bulshada ganacsatada shaqaalaha iyo xataa siyaasiyiinta kooxdu waxay adeegsadeen cabsigelin iyo argagax si ay u xakameeyaan bulshada dilal arxan darro ah meydad wadooyinka la soo dhigo iyo cabsi lagu abuuro shacabka ayaa astaan u noqotay heerka qalalaasaha dalka Mexico waxa uu gaaray ilaa 30,000 oo qof sanadkii in lagu dilo qaar kamid ah falalkaas waxay xitaa gaareen gudaha Mareykanka taas oo keentay in mowduuca kooxaha muqaadaraadka ama gaangiistarada uu dalka Mareykanka ka noqdo mid si weyn u saameeya siyaasadda
arrinta dad badan walwal ku abuuraysa ayaa ah in koobka adduunka haatan ay ka harsan tahay 3 bilood oo kaliya isla markaana uu bilaabanayo 11 Juun 2026 sida la qorsheeyay. Mexico ayaa loo dajiyay inay martigeliso 13 kulan oo koobkaas ah. Su'aashu waxay tahay amniga ma la xaqiijin karaa? Ma suurtagal baa in malaayiin taageerayaal ah ay si nabad ah ugu safraan dalkaas iyadoo magaalooyin waaweyn ay la tacaalayaan rabshado? Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa sheegay inuu si dhow ula socdo xaaladda. haddii rabshaduhu sii socdaanna waxaa iman karaa dib u eegis lagu sameeyo martigelinta Mexico. Si kastaba ha ahaatee dhacdadan waxay muujinaysaa sida koox gaangiistarra ah u gaari karto heer ay la tartanto dawlad. Dilka hogaamiyaha ma burburinayaan nidaamka mise waxa uu kicinayaa rabshad ka sii daran sidii hore. Koobka adduunka ma ku qabsoomi karaa si nabad ah? Xiisadda halkee ayay saldhiganaysaa? Aragtidaada noogu reeb qaybta faalooyinka hoose ee commentiska. hana moogaanin inaad muuqaalka la wadaagto asxaabtaada kuna soo biirto bahda Tifaftir Media. intaan dib u kulmayno waa Abubakar Maxamed oo idin leh nabad iyo warsan.